dalkaasi Jarmalka ayaa deeq lacageed ay iska soo ururiyeen waxay u soo direen walaalahooda Soomaaliyeed ee ku dhaawacmay qaraxii mashaqada ahaa ee 14 bishii dhaaftay ka dhacay isgoyska 14 Oktoobar ee Kisoobe ee magaalada Muqdisho. ayaan la mudakar ayaa faafahinta warkaasi Stuttgart ka soo diray. kulan isku yimaadeen jaaliyada Soomaalida ee Stuttgart ee dalka Jarmalka waxa kulankaasi daarnaa gurmadka loo fidinayo dadkii wax ku noqday qaraxii Soobe 14 Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddiga qaran ururinta Stuttgart ee magaalada Jarmalka Ali Khaliif ayaa waxa uu mahadnaq ballaaran u soo jeediyay cid kasta oo ka qayb qaadatay qaran ururintan muddadii ay socotay. sidoo kale lacag gaadhaysa 2170 euro si rasmi ah ugu wareejiyay gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed ee Stuttgart Daha Ahmed. 14 bishii hore 14 ee loo soo gabagabowday waxa ka qayb qaatay Soomaalida degan magaalada Stuttgart iyo agaarkeeda aad baa looga qayb qaatay. waxaa loo soo gacan galay lacag gaadhaysa 2170 euro. lacagtaas waxaan anigoo ku hadlaya guddidii loo xilsaaray arrinta aruurinta lacagta ku wareejinaya gudoomiyaha jaaliyada Masadaha si uu loo sii gudbiyo dadkii arrintaas xaq u lahaa umurtay. ka gudoomay anna waxaan hadda u sii gudbinayaa hadii la yiraahdo wakiilka xawaalada ka ee u fadhiya magaalada Stuttgart. waan leenahay insha Allah dadkii waxyeelada soo gaartay u sii gudbiyo. waxaana halkaasi uu ka sheegay gudoomiye Daha in lacagtaasi lagu caawin doono dadkii ku waxyeeloobay qaraxii Soobe ee magaalada Muqdisho. waxaana uu si rasmi ah lacagtaasi ugu wareejiyay wakiilka xawaalada ka ee magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka Cabdirashiid Shariif oo lacagtaasi gaarsiin doona guddiga sare ee taakulaynta ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho. lacagtaas jaaliyada Soomaalida Stuttgart degan ay soo gudbiyeen anigoo matalahaya xawaalada ka Express ee Germany Stuttgart. waxaan ballan qaadi hadii alla yiraahdo meeshii ay ugu talagaleen iyo guddidii qaranka ee u ururinaysay dadkii masaakiinta ahaa ee waxyeeladu soo gaadheen in sida ugu dhaqsaha badan ay ku gaadho iyadoo waxba ka dhimanayn lacagta la dhiibay ayaan ballan qaadi anigana insha Allah. gabadhiina waxa halkaasi tixgabaya oo qiiro leh halkaasi ka soo jeediyay abwaan Sharmaarke Carab oo kamid ah abwaaninta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka. in aan halkan tacsi uga diro dadkii lagu gumaaday Muqdisho 14 bishii tobnaad. waa masiibo qaran dumay, waa murugo iyo ciil, waa maalmo carab badan mugdi weeye nagu dhigan taariikh ma guurtaa aan maskabinay weeyaan. Muqdisho san doontid maalmee Muqdisho haniyad jabin, Muqdisho haniyad jabin mudantii dalkayga ay mahuraankii noloshaytii lagu maqsuuday waxa tahay muraayada dhibta mawle ka hay ka qari masiibada hayeeshee malyuunay maandeeq hashayday xeebtii mudnayday maalmaha adduunkee nooluhu macinsado mindiyaal af badan iyo miishaar waxgoysiyo mudciyaa ka buuxee bal mugaabso aragtida taariikh la soo maray isha milcise eegmada sidaad maalmihii tegay dhigaa ugu mudnayd eeg. waa yalla mudakar TV-ga caalamiga Universal magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka.